بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan halkan ka salaamayaa reer Khaatumo iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto baan halkan ka salaamayaa. anigu magacay waxa weeye Cornel Gedle weeye magacaygu waxa aan caawa rabaa inaan halkan shir jaraad ku qabto oo ku saabsan arrimaha reer Khaatumo iyo arrimaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya gaar ahaan wax kasta oo laga hadlayo ama wax kasta oo la rabo in la sheego waxa weeye markaad wax aragto oo wax ku muuqdaan ayaa hadalku iska yimaada isaga hadalku iska yimaada marka waxa warkan hadalkan caawiga keenay oo horta marka hore waa weerarkii bahalnimada ahaa ee lagu qaaday caasimadii ku meel gaarka ahayd ee Khaatumo ee Balcad baa horta aniga shirka jaraa'id caawiga keenay shirkaygan jaraa'idna waa shir jaraa'id oo ku saabsan arrimahaas waana shir jaraa'id aniga maskaxdayda iyo caqligayga ka soo baxaya bariyahan dib waxa jirta qofka hadduu shir jaraa'id qabto in dadka ama qaarba la yaabaan ama qaarba yahay maxaa loo yiri iyo maxaa loogu hadlay waxa weeye qof walba fikirkiisa isaga iska leh waxaan aniguna ka hadlaya hadda ama ku hadlaya waa fikirkayga iyo afkayga iyo sida wax u arkay iyo anigoo ah muwaadin reer Khaatumo ama ah muwaadin Soomaaliyeed hadba waxaan arko ama sida wixii muuqnay weeyana waxaan ka hadlaya anigu reeray dirsadayna ma jiraan cid kale oo dirsatayna ma jiro waa ra'yigayga iyo anigu aan reer Khaatumo ah oo reer Khaatumo waxaan hadba arko haday dhaliil tahay iyo haday horumar tahay iyo haday dhinac kastaba tahay iyo guud ahaan Soomaali weyn inaan marba aan caqligayga maskaxdayda waxa ku jiraan ka hadlo horta aniga hadalkaygu saas ku saabsan yahay marka waxa weeye waxaan ka hadlayaa weerarkii Balcad weerarka Balcad wuxuu ahaa weerar bahalnimo arutayo waxaan halkan uga dirayaa hambalyo madaxweynaha Khaatumo State of Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada iyo golihiisa baarlamaanka guushii iyo sidii fiicnayd ee ay yeeleen markii lagu soo qaaday weerarkii bahalnimada ahaa ee SNM ku soo qaaday caasimadii ku meel gaarka ahayd ee Balcad guushu ma aha oo kaliya inaad wax layso ma guul waxa ah xitaa inaad dadkaaga badbaadiso xitaa inaad naftaada badbaadiso xitaa inaad ciidankaaga badbaadiso mararka ay aragtid in xaalku marka aadan ka bixi karin waa military tactic baa leeyahay military tactic waxa weeye markaad xaalka qiimayso iska dagaalan maaha waa inaad wax kale ama barnaamij kale ama si kale uga wareegtaa marka waxaan ugu hambaliyaynayaa madaxweynaha iyo maamulkiisa sida fiican ee ummadii reer Balcad ee halkaas ahayd ay ugu dul dagaalami waayeen ayaan horta ugu mahad celinayaa uguna bogaadinayaa taa markaan halka kaga baxo waxaan la hadlayaa anigu reer Khaatumo la hadlayaa reer Khaatumo maamul baynu samaysanay maamulkeenu dhaqaale ma lahayn maamul cashuur urursada maaha waxa maamulkaasi inagu inagu tiirsanaa hadduu maamulkaasi inagu tiirsanana waxa weeye maamulka waa inaynu taageeraa oo ayna waxba kala harin haddaynan maamulkaasi taageeri weyno maamulkaasi ma shaqaynayo maamul iyo dawladii waa shacab weeye haddaynan taageerin maamulkaas wax allaale iyo maamulkaasi waxa uu qaban karaa ma jirto waxaan halkan rabaa inaan in yar ka faahfaahiyo maanta maaha weerarka lagu soo qaaday Balcad maanta maaha markii koowaad weerarkaasi wuxuu bilaabmay maalintii la saacanood la qabsaday ayay SNM bilowday ilaa iyo maalintaas ilaa iyo maalinka maanta SNM maalin walba weerarba waxay ku haysaa dhulkii reer Khaatumo SNM waxa weeye ma dhalan maanta SNM waa SNMT dagaalami jirtay inteenu maqlayn ila dawladda Soomaaliya waa SNMT isla samaysteen weeye SNMT
oo sideedii oo kaliya ay ku soo biirtay inay la wareegaan caasimadii dalka Soomaaliya Hargeysa markii dawladda dhexe Soomaaliya burburtay oo ay heleen xoogaa caawimaad yar oo adduunku siiyay oo la yiri dadka masaakiinta ee Hargeysa iyo Burco iyo Berbera jooga ee buulasha ku xanuunsanaya wax ku siiya ayay kaliya waxay ku iibsadeen baabuur la gurusalo ay qorya saarteen iyo hubkii yaraa ee iskaraabka ahaa ee qarankii Soomaaliya kaga tagay dhulkii qaybtii 16 iyo ay soo urursadeen oo ay dib u habeeyeen waxa ay horta ku dagaalamayaan ama ku soconayaan horta waa sida waxaanina waxa weeye waa SNMT oo sideedii wax isbedelay ma jiraan dawlad maaha habkay u dhaqmayaan iyo habkay u soconayaan wax la yaabo iyo wax cusub maaha waa siday markii hore SNMT markay ahaayeenba qaabkaas ay ahaayeen maalin walba meel bay weerar u geli jireen ciidamada habeenkiina waa lugeyn jireen maalintiina waa hurdi jireen haddana waa kuyu SNM waa sidii awal baahay wax ku soo kordhay mare aan ka ahayn caawimaadda yar ee caalamka ee xogaa hubka siisteen waxaan u sheegayaa reer Khaatumo waxa la yaaba ciidankii balli cad qabsaday bil hadda laga joogo waxa lagu abaabulay laascanood iyo aynaba dhexdooda lagu abaabulay ciidanka SNM meeshu ka baxay waa dhul bahante meeshu sii maray waa dhul bahante meesha uu qabsaday waa meel dhul bahante intaas oo dhan ee ciidankaasi marayay wuxuu ciidankaasi maray carro dhul bahante ilaa meeshu ka baxay ilaa meeshu maray ilaa meeshu qabsaday waa carro dhul bahante dadkii dhulkan la hameeyay dhulkan dadkii la hameeyay meeyay dadkii dhulkan u dhashay waxaan u sheegayaa علي خليف وشخصي ويه علي خليف وحويه وشخصي حدينا تاجرين وحلا لوحو قبان كريا ماله قفلوا وكقوصو وح علي خليف ما أنت جل هوستي فريسيي الدفاس جليي وحويه هل جنك يعني بعتذر بالبحث لوها يمركو أركي علي خليف دمه أولها يريريه سودنا كده خاتي isagoo maanta loo yahay ilaa heer primary student Soomaaliya ka gaaray ilaa heer professor shahaadada wadanka adduunka ugu sareysay PhD ka gaaray inuu maanta geed hoosti Cali Khaliif fadhiisto wuxuu maanta Cali Khaliif halka u fadhiistay waxa weeye dhibaatada dhulbaxanta ku dhacday iyo ragga la midka ahaa iyo kuwa ka liita oo maalin walba dalkoodii iyo dadkiisa weerar ku soo qaadaya taas horta Cali Khaliif meesha geysay Cali Khaliif xukumo doonan Cali Khaliif lacag uma doonan qof ka moodaya Cali Khaliif inuu ujeedo leeyahay waxaan ku sheegnaa Cali Khaliif ujeedo uu leeyahay inuu jirin Cali Khaliifna inuu noloshii adduun uu soo dhamaystay wuxuu maanta u dagaalamayaa ay tahay daradul bahante taa Calina halkaas kaga baxaya waa inaynu taageeraa dawladdeena maamulkeena waa inaynu taageeraa dhul bahanto kuwa gudaha jooga ee dhul bahante ee dhulka jooga ee la iska marayo ورما واحد قادم ويدن آكل ورآكل كنت دفاعي كرتان ومبهند قري وين ومبهند آكل كنت دفاعي كرتان وحنوش شغيار دادك الجودها ورسكو حشوار وإسكت دفاعي وإسكت عليا أسنا أمتن يرى المربى صدق قرية صدق بابور صوت حيسان صار القرية يرسانية هي كيو ولا ومركو لا فبسأل السياجيو أولئك هالكاس مرين ورسك عليا تاسوادتك الشعب كيقولك تشوجا أبا يحيستا ما أنت غير صوماليات الله هيستدل كودي دول بهنتا تجرا غير صوماليات دول كودي لسكم مريو دول بهنتا تجرا أن قربتوك ترى وحنو الشيء دمان قربتوك بيري تشوك تبا وين الشدك دقا قبصتان وين الشدك دقا قشان وإن سيدي مامورك خاتمه لوغا تاغيري لها حق النقالها لوغا تاغيري لها وإن سندك لو قلو هدينو قربة جوجتنا وانا وانا كجرو وحوي مامور aan ciidan lahayn ma shaqeynayso maamul aan ciidan lahayn ma shaqeynayso maamul aan cashuur qaadanina ma shaqeyn karo
marka waxa weeye waxaan reer khaatumo kula dardaarmaya waan kula dardaarmaya sida ugu dhaqsaha badan waa inaynu u bedelaa sheekadii ahayd maalin walba sheekadii ahayd halkan la qabsaday halkan ay marayaan magaalo Hiiraan la qabsaday oo mar allaaliya marka meel la qabsado la isku yaacayo oo ka guduhuna uu sii eegayo meesha aysan martay ka dabada joogana uu kombiyuutarka ugu wareerayo isagoo ka raadinaya war fiican ku helaysaa haddaadan lacagta bixin see war ku helaysaa haddaadan maamulkaaga taageerin see war fiican ku helaysaa see gobonimo ku helaysaa waxaan u sheegayaa maamulka Khaatume State of Soomaaliya madaxweyne ilaa iyo ka ugu hooseeya ilaa golo wasiila golo bar waxaan u sheegayaa haddaan ciidan la samaynin maamul ma jiro haddaan ciidan la samayn maamul shaqayn karaa ma jiro waxaan idin sheegayaa oo maamulkan ku boorinaya sool iyo sanaag iyo cayn xabad baatal sool iyo sanaag iyo cayn sool iyo sanaag iyo cayn laguma haysto siyaasad laguma haysto waxa lagu haysta sool iyo sanaag iyo cayn xabad weey baa lagu haysta marka reer Khaatume guud ahaan maamul iyo shacab waxaan u sheegayaa bahasha siyaasadda la yiraahdo ama siyaasaddu waxa leeyahay banaanka iska dhiga haddaynu doonano dhulkeena iyo dalkeena iyo dadkeena inaanu xoreysano siyaasad waa inaynu halkan iska dhignaa sool iyo sanaag iyo cayn xabad baa taala haddaynan xabad ku dagaalamin siyaasad wax allaale iyo waxay tarayso male wax allaale iyo waxaynu ku xoreynayna male la sacaanood qori baa lagu qabsaday balcad waxa lagu qabsaday kala badh qori baa lagu haystaa inta soo socota ka daran wali lisma gaarin SNM waxay dhulbaantay la damacsan tahay wali lisma gaarin maamul aan ciidan lahayn ma shaqaynayo runta in la isu sheega fiican maamul aan ciidan lahayn ma shaqaynayo wax kasta haddaan samayno oo inaan maamul lahayn maalin walba magaalada la ka caydsanaya maalin walba waxaan u sheegayaa maamulka Khaatumo iyaga hogaamintii aan u dhiibnay waa in ay keenaan barnaamij ciidan waa inay la yimaadaan oo ula yimaadaan dadkooda reer Khaatumo iyo shacabka reer Khaatumo waa inay barnaamij ciidan ula yimaadaan anigu ilaa ay hadda intaan arkayay barnaamij ciidan oo la soo bandhigay anigu ma rabo in sirta gaar ahaaneed ee maamulka ciidanku leeyahay la sheego ma macnaheedu waxa weeye in loo soo sheego dadka qurbaha jooga barnaamij ciidan in loo sheego anigu ma arag waxaan arkaa oo kaliya siyaasad baan arkaa sool iyo sanaag iyo cayn siyaasadi kama shaqaynayso sool iyo sanaag iyo cayn xabad baa ka shaqaynaysa waa ku celinaya xabad baa ka shaqaynaysa haddaan xabada dhicinna shacabka reer Khaatume waxaynu isu sheegaynaa waa been waxaan isu sheegaynaa taasna waxaan kaga baxaya intaasaan kaga baxaya waxaan kaloo reer Khaatume u sheegayaa dowladda Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh ee uu Prime Ministerka ka yahay Cumar Cabdirashiid Jawaari ninka la leeyahay reer Khaatume waliba gaar ahaan madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume waxaan ka codsanayaa isaga maamulkiisuba inay dowladdaas dowlad ku sheeg weeye inay xariga u jaro madaxweyne Cali Khaliif waxaan ka codsanayaa annagoo shacabka reer Khaatume inuu xariga u jaro maamulkaas dowladda Soomaaliya lagu leeyahay ee halkaas waxaan sidaa u leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Prime Ministerka Soomaaliya gudoomiyaha balka waxa loo doortay ummadda Soomaaliyeed bay u dhaafteen waqooyi iyo koonfur bay u dhaafteen maanta waxa muuqata oo reer Khaatume aan idin sheegay oo aan u leeyahay xariga loo jaro waxa weeye maanta waxa lagu shiraya Kismaayo lagu shiraya waxa ku shiraya madaxweynaha maamul goboleedka Garowe madaxweynaha maamul goboleedka Cadaado madaxweynaha maamul goboleedka Xamar wardhigle madaxweyne ka yahay iyo madaxweynaha Baydhabo iyo madaxweynaha Kismaayo intaas oo intuba ka soo jeedaan koonfur bal u fiirsada reer Khaatume intuba koonfur bay ka soo jeedaan hal nin oo reer waqooyiya kuma jiro ciduu doona waqooyi ha noqdo kuma jiro waxa weeye waxa meesha ku shiraya
وكونفرتي وكريه نمن كان ماشى كل شريانا waxay ka hadlayaan oo leeyihiin ummad Soomaaliyeed masiirkeed baan ku hadlaynaa bal kadaabnimada inta la eegday nimanka meesha ku shiraya nin kaliya oo cambaareeyay weerarka lagu soo qaaday reer Khaatumo iyo shacabka reer Khaatumo ee loo dhaartay ma jiro nin kaliya madaxweyne sheeganaya oo koonfurta jooga oo yiri war dadka noo reerkaas weerar lagu soo qaaday iyo ummadaas Soomaalida weerar lagu soo qaaday cambaarayno ma jiro intooda waxay ka hadlayaan oo nin waliba ka hadlaya oo nin waliba sheegaya dantii sagaarka ahayd iyo dantii jilibkiisa yar ee reerkiisa hoose ayuu nin waliba ka hadlaya kuwa madaxweynayaasha sheeganaya ee Kismaayo jooga halka waxa idin muuqata inaan waqooyi waxa la yiraahdaa oo Kismaayo shir loogu haya iyo wax waqooyi la yiraahdaa oo koonfur shir uga socda inaanu jirin dadka xamar ku shiraya Kismaayo dhammaantood waa reer koonfureed weeye waxaan u sheegayaa dhulbaanta iyo reer Khaatumo in xariga loo jiro madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne Soomaaliyeed ma matali karo wuxuu matalaya oo inta ka shaqeynaya sidoo kursiga ugu soo laaban lahaa iyo maamul goboleed isagu rabo ayuu ka shaqeynaya jawaari waa saas oo kale bal ra'iisul wasaarahan daysna aamusan ee aan hadlaynin ee aadan moodidba inuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa kay ee aad moodid ra'iisul wasaare xafiis maareeye ama xafiis agaasimo guud inuu fadhiyo aadan moodayba inuu prime ministerka Soomaaliya ee ilaa waqooyi koonfur isku hayay inuu sanahaynba ee aad moodaysid sida maareeyihii ama agaasimo ku-xigeenkii ama wax iska hoose u egba ee iska aamusan hadlayba waxaan u sheegayaa marka madaxweyne reer Khaatumo inuu dowladdaas ama maamulkaas koonfurta ee Soomaaliya lagu sheegayo inuu xariga u jiro reer Khaatumo waxaan u sheegayaa inay xarigooda haystaan inay calankooda haystaan inay halkaas Soomaalinimadii sida u ilaalinayeen iyo kala goynta waddanka ay u ilaalinayeen inay sidoodii u hayaan laakiin dowlad Soomaaliyeed oo maalinka maanta jirta oo madaxweyne iyo prime minister leh oo gudoomiye baarlamaanka leh inaanu jirin oo ay xariga u jiraan oo meel allaale meesha joogaan kaga mudaharaadaan in madaxweyne Soomaaliyeed iyo prime minister Soomaaliyeed iyo gudoomiye baarlamaanka midna aysan jirin oo ay wuxuu yihiin hogaamiye kooxeedyo hogaamiye kooxeedyadii dhintay waxa bedelay Xasan Sheekh Umar Abdirashiid Tawaari ayaa waxay bedeleen nimankii hogaamiye kooxeedyada ay dhintay kuwaas bedelay waxay ku urureen Garowe xamar iyo Kismaayo ku urureen intaas ku dhex wareegayaan masayr Soomaaliyeed oo habeenka caawa ay hayaan ma jirto waana hogaamiye kooxeedyadii xamar jiri jirtay ee dhintay oo kale noocoodi weeye marka waxaan ka codsanayaa reer Khaatumo inta qaran Soomaaliyeed iyo madaxweyne Soomaaliyeed iyo prime minister Soomaaliyeed iyo gudoomiye baarlamaan oo sax inta leeyahay Soomaali inay calankii Soomaaliyeedna ku dagaalamaan dhulkii kala goyntiina sidii u hayaan inay halka ku ilaawaan Xasan Sheekh iyo waxa la joogaba waxaan idin sheegayaa oo kale Xasan Sheekh kadaabnimadiisa waa kadaab aniga halka caawa kale wuxuu kadaab ku yahayna ما لعبت الدورات الصومالية ومبدأ الصومالية لعبت الحكومة السمية بلد وحكومة السمية بلد وينه وحكومة السمية عداده وحكومة السمية بيدبو أي حكومة السمية مدحوينه علي خليفة قال البرك وانت جينا وطبعا كنت كنا نقضينا مركب قد ما يسوي حكومة الله مامور اللي هذا ما خليه خاطمه السجايو صوت سمايس تمامره مركز صوت سمايس تمر التاجرية بل كدابنimada inta leeg markuu cali khaliif ka dhaqaqay saacad ka bacdi Sinaayu la hadlay Xasan Sheekh markuu leeyahay ma akhriyo soo samaysta iyo maxaa khaatuma soo samaysta saacad ka bacdi wuxuu la hadlay Sinaayu la hadlay waxa weeye reer Khaatumo Sinaayu iyo Xasan Sheekh iyo Umar Abdirashiid iyo Tawaari iyo Sinaayu inta oo isku mid hakala saarina waa isku mid waa isku group kadaabnimada inta leeg bal kadaabnimada inta leeg ninkii dhamaa ee odayga ahaa ee madaxweynaha ahaa ee reer Khaatumo xukumayay kadaabnimadiisa markuu ku yiri or maamul soo samayso waa kadaab ana caawa halkaale madaxweyne Soomaaliyeed ma aha reer Khaatumana madaxweyne Soomaaliyeed ma aha ummadda Soomaaliyeed ee fiican ee Soomaaliyeedna waxaan ugu mahadcelinayaa
sida fiican ee sharafta leh qabiilka doonta ka soo jeesta ee reer khaatuma u taageereen anigu hadalkana ka hadlayo ama xasan shaqa ka hadlayo ama Cumar Cabdirashiid kana ka hadlayo ama Jawaarigana ka hadlayo maaha qabaa'ilka ka soo jeeda maaha waxaan ku dhaliilaya ama ku maagaya waa mas'uuliyadii oo ano shakhsi ay ugu dhaarteen inay wax noo qabanayaan taas way taa ku haysta reerna shaqo kuma leh cid kalena shaqo kuma leh hadalkaan leeyahay reer ay ka dhasheen iyo reer ay ka tisay reer ay midna shaqo kuma leh waa mas'uuliyadii ay qaadeen noo dhaarteen waxay ku dhaarteen ummadda Soomaaliyeed inay iyagu daacadu noqonayaan ma ay ka soo bixin waad arkaysaa nin walba qabiilkiisii iyo reerkiisii ayuu dabada ku haya oo wuxuu doonaya marka waxaan u sheegayaa reer Khaatumo meel ay joogaanba madaxweynaha iyo prime ministerkaas halkaa jooga ee Soomaalinimada sheegay Soomaali sheeganaya xarigayna u jara oo halkaa ku ilaawa taana halkaas kaga baxaya waxaan ku noqonaya oo ku celcelinaya reer Khaatumo علي خليف حدينا تاجرين أو ما يموت لبدا بينك تاجرين علي خليف وحبا ما قبكر وحلا رأي وحو قبك كرمله مركا وحكا عصنا يا رخاتي وكل علينا وحلا الصعدة الله الصعدة وعرض البهاتي أمرنا كرخاتمو إن أسنا قبصته مركا قبصتنا قف كسر البهاتا هلك على حكمه إن قف كسر البهاتا بري سلو حكمه والسبب يودي أكرتا غير كلام بدا إنه يتوير كوكو قاضو وحكمه قبصته إنه كوكو ميستو سبب يودي أكرتا أسنا بوحي كتقالمين قنا الصوماليين بلا تقالمين وغير باهين وين هو نقوميسنا سيوغا يلي سمانتا قف كرهر البانتو أما رقاتمو أول جوغا كلبر جوغا سيبو مانتا ويليا نقرن كسمانة ديدي إنو مانتا يسوغر هيرينها الدولة بان عقلي نوع عاصا يتدك نوع عاصا سيو يليسا يسوغر هيرا إنو كوين هذا الحكومية وحبك حكومية وحبك وقوميسنا وحدو الشيغية والرقاتمو الشيغية او اكزامبل علي خليف او بروفيسورا او بريم مستر سوماليا نقضي سببتا كانتي جيد هوستي كانتي قف وربا او دلبانتا او دبير لو حقرانيا علي بغوصو علي العقبة صوتونا اقوانها صوتونا هلكا وحا الله روحو صوتون تيمان وحا قضي نمان كاس SNM قابك يسعودان iyo xumaanta yusعودان iyo sida yusعودان ay علي كسحوي تاسا كنتي علي هلكا نتو مركا علي نكاله كوا waxay yiraahdeen hargey soo socda علي waa dhameystay darajo waa dhameystay aqoon waa dhameystay darajo waa dhameystay waxa waa dhameystay علي wuxuu suqay aakhirana waxaan ugu ducaynaa ilaahay inuu jannada geeyo baan ugu ducaynayaa marka waxaan u sheegay reer Khaatumo dee ama gobonnimo qaata ama gunnimo qaata intaad isku mashquulsantiin reer Khaatumo isaga isku mashquulsan reer Khaatumo isaga isku mashquulsan وريسكت داي إن أسكون مش خوشان إذنكم أو إذنكم سيكتان إسكت داي إذنكم مركز أسكون مش خوشان غير كلام إذا أديك أنا كوم مشغولي وحن مركز وش شيء ورقة تقول عليه أو تقول عليه أو أنت الدمير كله كل عليه أو أنت الدمير كله كل عليه سيدا أقول لك صعب بدن أقول لك صعب بدن أقول لك صعب بدن وإن وحلوبة بدلوا استراتيجية عيدا وإن سيدك دك حلوبة بدلوا وإن سيدان هدا لغو جيرو سي لغا بخي كرا ما جirto in aynu maalin walba weerar isku mid ah ku soo qaado maalin walba weerar isku xitaa mid cusub maxay ka dhigahay hadii weerar cusub aan loogal ku soo qaadayo hadii waxa cusub lagu soo ma jirtaba maalin walba waa SNM tiiray ee dhowrka baabuur saaray ee wiilasha yar qaadka laga dhirgay saaran yihiin xoogaaga lacagta jeebka loo soo galiyay ee qaadka la soo siiyay caawa qayla 3 casho qayla markay meel galayaan 3 casho markay qaylaan ayaa maanta afraasoo si fiican u saxan baa waxa la yiraahdaa meel la galiya hatta ma garanayo meel loo soo hatta ma garanayo taan halkaas kaga baxaya waxaan sheegaya kuwa la yiraahdo horgalayaal ama dabadhaqayaal ama horgalayaal ama dabagalayaal la yiraahdo kuwaas la hadlayaan ee habeen wada tifiyada taagan
إلهي واحد كذا رسالة خير قبطة أو تائسا مكفع إلهي يدسيه مركي وطكي يقرنكي الصوماليات بربري ومدي إلهي قفبا وحو دقاقي كواس وحو دقاقين إلهي أسن أم حوغا يرحقاطان waxay meesha u joogaan oo kaliya u joogaan waxoogaga yar ay qaadanayaan bariiska la siinayo iyo qaadkaya wax kale ma jira kana reer khaatumo haddii marka la soo diro oo kala bar loo soo diro oo xixir loo soo diro oo wurwur loo soo diro oo balcad loo soo diro ka horgalaha haddii halka laga toogan lahaa sidaas ma dhacdeen ciidan dambana ma soo horgaleen ciidan dambana ma soo kaxaysteen ciidan dambana loo soo diray halkaas ku carray marka waxa ka codsanaya horgale ha ku daalina horgale xabad hadda la dhacdaan hor ka carayla laakiin haddana nidhaahno horgaluhu wayna hebel markuu kala bar soo galo hadii la yiraahdo wayna hebel daaya wuxuu markuu soo galo hadii la yiraahdo wayna hebel daaya markuu boohooda ka soo socdo hadii la yiraahdo wayna hebel daaya inagoo dhabba waxaan ku qabsanayaa wayna hebel daaya saynu leenahay dhammaanteen waxaan arkana isaaqoyna haysta intaanu leenahay in hebel weeye kan daaya lama taaban karo marka reexaatu wuxuu sheegay oo ka codsanaya oo kula dardaarmaya عقلي maaha معقول maaha maalin warba weerar isku mid ah oo isku nooca in la ku soo qaado balu fiirsada maalin walba oo isku weerar waxaad maqlaysaa halkaasay mareen intaasoo baabuur bay ahaayeen war maxaa maalin walba oo isku si waa inaynu ka ilbaxno oo ka hormarro sheekada yar ah maalin walba isku wax ism miyeen waxa Soomaali oran jirtay ilaa arin daasad kama ilbaxo إلا أريد تأسف كمان البحر سوما لكم أمام ما أنا أريد ما نقول تأسف سو عرريا ورمانو والبا لو كان بابور يقون الشتاء يا أفرتن لكذا كسر القاتي كدرجي ما نقول بحطين هذا كسمريا كجذوه لينا هذا وقوة سيس علا يا مجال الدين عندي سؤال دقيق كجذوه شو هذا وعضو كورنيا أكتيد أكتيد دقيق يا حاجة دبي نقد دقيق كبدأ شو أنا كبيوتو كساوي يا ولد رادينيا قول لك قاري وقولي لك قاري قوش وقولها كرادينيا يا قاري مع الخليج بقاري قوش ما بين التاجرين وحنا ما الخبر قوش كبيوتو كولا رادينيا قوش وحكوا عصريا كدمت تشوجا قوش دور يوم هل كان مركز وقبضت هلكا أي هلكا سقولي سلسة كحاجة تشوجا مركز إنسان نفترض يا وهلكا سيسي صعدان من أولا يدين عن النجدة هكتير يشوفين مركان وعنا كاسنا إلى هاي النبوكان يقدم بيتكلم اسكعلي كل قيل حتى تروحوا دبنت الصباح مركان حتى واحد قالوا تونا مرة يارو وطلهم تونا كستوي مرة هدين هم هيسم تدك الصباح وعطير هذا عاية حتى تروح قالوا إذا اسكع عاية حتى وهي ويركي إلى الشعور لكن ما قالنا oo iska dhaxmarayo oo daawanaysa adeer waxaas wax soconaya male marka waxa ku soo gabagabeynaya waa in la taageero maamul goboleedka Khaatumo waa in la taageero wax haddaan la taageerin guul la helaya ma jirto waxaan u sheegayaa oo ku daraya oo kale sool iyo sanaag iyo cayn waa ku celinaya siyaasadi mata waxa taal xabad bata wax siyaasad la yiraahdo Soomaaliya sanaag yaanu baahanta waa xabad Afrika xabad wax ka celisa Afrika siyaasad ka celiso waxa ka celiya iyo aqal xitaa aqal ka celiyo waxa ka celiya xabad hadduu arko in xabis iska celiso ka joogay hadduu arko in iska celiyo ku dilaya sool iyo sanaag iyo cayn waxaan u sheegayaa nimanka siyaasiyiinta ee waaweyn odayaasha sool iyo sanaag waxa yaala wax xabad haddaan xabad lagu xallin siyaasad lagu xallinayo iska daaya siyaasad kale iska daaya meel kale waa inaynu soo jeesanaa dhulkeeni isaynu difaacan lahayn waa dhulkeeni isaynu difaacan lahayn waa xasan sheekh aan iska dayno xamar aan iska dayno wax inaga yaal male xamar iyo xasan sheekh wax dambe inaga yaal male waa kadaabnimo weey in maalmo walba intaanu tagna leeyahay orda soo sameeya sida caruurtii waxa kula dardaarmaya inaynu dhulkeeni difaacano oo dhulkeeni u tashano gudaya dawladda وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.